madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa xariga ka jaray xarunta shirkadda Somgas ee kaydka gaaska laga soo dejin doono oo dhismaheedu socday muddo 9 sano ah oo ay shirkadaasi ka hirgelisay magaalada Berbera. madaxweynaha iyo waftigiisu waxa ay kormeereen terminaalka gaasta oo ay shirkadu sheegtay inuu yahay kan ugu weyn Geeska Afrika. munaasabad ballaaran oo loogu talagalay furitaanka ayaa waxa goobjoog ka ahaa guud ahaanba waftiga madaxweynaha, madaxda shirkadda, gudoomiyaha gobolka Saaxil, marti sharaf badan iyo mas'uuliyiin kale. gudoomiyaha shirkadda Somgas Cabdikariim Xaaji Muuse Muruqliqe iyo gudoomiyaha guud ee shirkadda Telesom oo ay qayb ka tahay Somgas Cabdikariim Maxamed Iid ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda soo dejinta iyo kaydinta gaaska. 25 Maaris 2017 inaad xariga ka jarto kaydka ugu weyn ee gaaska wax lagu karsado largest terminal in Horn of Africa kaasoo ay maalgelisay shirkadda Telesom. sida aan idin sheegay waa mashruuc ay dhammaan dadka reer Somaliland ku midoobeen ayna hormuud ka tahay shirkadda Telesom oo runtii dalka wax badan gelisay. dabcan ganacsigana wuxuu abuuray silsilad ganacsi taas oo keentay in shaqaaluhu fara badan ay bulshadeen ay runtii u samayso fawaa'id fara badan oo walaalkii Cabdikariim halka ka dhawaajiyay ayaa uu terminalkan runtii keeni doonaa. marka ugu horeysa biyadeena biyad nadiif ah ayuu ka dhigayaa waxaan isticmaalaynaa mid baaqinaya ma noqonayo wuxuu keenayaa in wixii muddo in wax lagu kariyo ama lagu shaqeeyo muddo qaadan jiray inay degdegsimo ay keento. mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland xildhibaano culimo ayaa soo dhaweeyay dhismaha xarunta Somgas ka hirgelisay magaalada Berbera si loo badbaadiyo deegaanka iyo dhirta la shito. aad ugu ducaynaya hawlaha bariyo tarmaysa Telesom Group iyo Somgas waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga baryayaa dhiirigelinta ganacsiga private-ka loo leeyahay oo siyaasadda dawladda kowka dastuurkuna damaanad qaaday suuqa xorta inuu taadiidi geliyo madaxweynuhu waa inay wax badan ka qaban doonto qiimaha dawladdu runtii waxay investment-ka inta laga ballaaran haday tahay dhulkii haday tahay dugsiga yaga koo ugu dambeeya waa sidaan dhulka loo kala xadeyn lahaa xadsi dhulku kala yana maxaa beeraynoo noqonaya maxaa daaqsin noo noqonaya mid tahay shirkadda maxay hay'ad magaceedu Telesom Group Somgas oo imka halkan aan furayno ayagana sharaf bay u tahay in madaxweynihii dalku uu dhagax dhigo oo ama uu furo mashruucaas Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo halkaasi hadal ka jeediyay ayaa ka warramay ahmiyadda ay leedahay gaastu. gaasta waxa laga maarmi karaa inaynu isticmaalno dhuxusha cadaadda inuu noqotay taasoo deegaankeena dabargoynaysa si mashruucan u hana qaado waxaan kula talinayaa shirkadaha Somgas inay hoos u dhigto qiimaha gaasta si bulshada marweyn xukuumadda aan galwadaan ka ahay waxay siyaasadeeda udub dhexaad u ah inay dhiirigeliso maalgashiga ay dalkooda ku sameynayaan ganacsatada reer Somaliland. sidoo kale waxaa naga go'an inaan dalkayaga iyo dadkayaga u samayno saaxiibo badan oo siyaasadeed dhaqaale iyo ganacsi kuwaasoo suurtagelin kara in lagu tallaabsado horumar ballaaran iyo maalgashi. shirkadda Somgas ayaa madaxweynaha Somaliland guddoonsiisay shahaadada waxqabadka muddadii uu xilka hayay iyadoo sidoo kalena ay shahaado sharafyo ku maamuuseen maayirka Berbera, maareeyaha dekedda Berbera, wasiirada deegaanka, maaliyadda, ganacsiga, tamarta ee Somaliland oo door muhiim ah ka qaatay dhismaha xaruntaasi muddadii ay socotay. sidoo kalena shirkadda Somgas waxa ay wasiirka deegaanka ugu deeqday gaari ku shaqayn doona gaas